alxamdulilah nabad baa ilaahay ugu soo celiyey xaaladayda kalena aad bay u fiican tahay waxaan rabay soo dhaweyntaa ka bacdi marka hore inaan ka tacsiyeeyo geeridii tiraanyada lahayd iyo shilalkii uu ugu dambeeyey kii xalay dhacay oo aan isleeyahay waxaa ku nafweyday dhallinyaro ahayd sulbigii ama nuqbadii ama dhallinyaradii lafdhabarka u ahayd jiilka maanta kacaya waana ayaan dara maalin walba inaan weyno dhallinyarada noocaas ahayd wax la beero iyo wax la abuuro waxaa ugu fiican mujtamaca haddii mujtamacii maalin walba uu wejigaas nagaga dhacana waa wax dhibaatadeeda leh waana arrin aan horena uga hadlay inaan ka waantoono inaan tacsi dirno oon u baahannaha inaan fal fulino oon ka hortagno oon dagaalanno oo ina tacsidu nagu soo noqnoqone waxqabad iyo aan la nimaadno hawshaa inaan si dhaba wax uga fulino kismaayo laftirkeeda shilal dhowra isaga dambeeyey marka laga soo tago kii habeen dhaweed bambkii lagu tuuray waxaa isugu kaaya xigtay laba nin oo midna runta ganacsiga mas-uulka ah midna uu ka dambeeyey oo nin ganacsado ahaa oo shirkadda amal wakiilka ahaa allah u naxariistee cabdulaahi oon aada iyo aada ugana xumaanay ugana tacsiyeynaynaa iyagana dhibaatada maalin walba nagu soo noqonaysa waxaaseedna faran ay tahay inaan insha allahu aan uga gudubno arrintaasi inaan ka waantoogno oon ka gudubno tacsida oo aan iska celinno oo aan fal ka geysanno oo aan cirib tiro intaas waxaan marar badan ka hadalay war soomaaliya intaan isu nimaadno hal qorshe dagaal oo midaysan oo isku xidhan innaga soomaalida ku fillaan karna xataa amisom iyo cidna inagoon u baahanin laakiin nasiib darro waxaan ka shaqaynaynaa waxay noqotay wax ku saabsan waxaan danta ummaddaasi ayna ku jirin maxaa doorasha dhici maxaa la isdooran maxaa kursi loo tartamaya mujtamaci hadduu maalin walba baaboo oo maalin walba raggaad arkaysa xalay meydkoodu yaallay oo kale ay ku baaba'aan waa arrin dhibaatadeeda iskale